waxaad moodaa madaxda galmudug inay ka jawaabeen baaqi qayla dhaanta Caabudwaaq ay jeediyeen wayna ku mahadsan yihiin agabyo waana soo gaareen sariiraha noo yimid madaxda sharafta leh oo heer caafimaad ah Caabudwaaq waxa dhex yaala ama xaqiiqadii markaan fiirinay waxa yaala waxaan rabaa qayla dhaantanadii runtii aan xanuunkii COVID-19 aan ka qayla dhaaminay dawladdu isku keen xilqaantay agabkiina soo gaaray inaan cadeyno oon halkan ka sheegno waxaana soo gaaray gloves karton face mask 5 karton ookiyaale iyo xargihiisa oo 1 kartona koofiyadaha iyo maryaha adugu 1 kartona 5 mishin oo meeshii 8 mishin oo laga sheegay ay shanuna soo gaartay naloona cadeeyay in lagala digay gaarigii annagana aysan soo gaarin waxaan rabnaa cidii alaabta noo soo dhiibtay annaga u mahad celinayna wixii aan soo gaarin ay noogu tala galeen inta aanu sheegnana soo gaartay wixii kale inay kula xisaabtamaan wixii baahidanadu ay ahaatana waan la soo wadaagaynaa in badan oo mahad celinaynaa waa mahadsantii Dr. Aweys Culusow oo xubnaha wasaaradda caafimaadka federaalka ka socday ayaa dhankiisa kalmado kooban halkan ka soo jeeday runtii safarkan wuxuu ku wajahayaa maanta sida looga jawaabi lahaa dhibaatooyin coronavirus oo ku hayo guud ahaan wadanka gaar ahaan Caabudwaaq waxaana anaga takhaatiir ka socoto dawladda dhexe waxa wakiil ooga nahay dawladda soo qaadnay agab iskugu jiro qalabkii amba waxyaabihii looga hortagi lahaa xanuunka coronavirus iyo hadii la arkay wixii lagu daweyn lahaa amba loo ka qayb qaadan lahaa caawintiisa xildhibaan Axmed oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa dhankiisa goobta ka hadlay ugu dambeyntii ku soo dhaweeyay Axmed Mire Faafaale oo wasiir dowlaha caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug aad ugu faraxsanahay wasiirka oo si degdeg ah noo soo gaaray asagoo noo wado agabkii aan dalbanay kaasoo nooga yimid dowladda dhexe noo soo maray maamul goboleedka Galmudug wasiirka uu noo keenay waxaan filayaa bulshada reer Caabudwaaq inay u joogaan dhaqaatiirtii oo federaal ah oo isteedaba magaalada Caabudwaaq runtii waa magaalo aad u baaxad weyn oo cudurkan coronahana uu aad u saameeyay sida warbixinta bahda caafimaadka iyo maamulka degmada iyo xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kala jooga ay hore ugu warbixiyeen maanta waxaan u nimid marka inaan ka jawaabno baaqaas waxaan ku sugannahay xaruntii karantiilka ee loogu talagalay cafwan waxaan runtii u sidnaa qalabkii agabka caafimaad oo degdeg ahay ma ahan mid baahida dabooli kara oo ku filan laakiin waa emergency in loo isticmaalo sidoo kale waxaan wadnaa nala socdo dhaqaatiir muqdisho nooga timid iyo kuwii dhaqaatiirtii Galmudug oo iskaashana oo runtii ayaguna baaritaan degdeg ah sameey doona si sambalkaas loo qaado oo loo soo baaro waxaan rajaynayaa marka anagoo is wada kaashanayna inaan maxaa la dhahay u wada istaagno sidii aan cudurkan ugu hortagno